بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودياشيدا qiimaha iyo qadarinta naga mudano halkani waa xarunta telefishinka caalamiga ee Somali Channel oo ku leeyahay magaalada Nairobi. Ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu doonayno hadii Allah awoodo la raali ka noqdo in aanu waraysi kooban kula yeelano gudoomiyaha ururka SBB mudane Maxamed Gaarane Cumar oo ku magac dheer Dr. Maash ahna gudoomiyaha jaaliyada Jareerweyn ee ku dhaqan dalka Nairobi. mudane Dr. Maash ku soo dhaw Somali Channel TV. waa aad mahadsantahay ku dhaw soo dhaw. waa mahadsantahay gudoomiye. waxaad nooga warantaa ururkan SBB ee aad dhawaan ka dhawaaqdeen magaalada Nairobi. horta waa maxay magacaan SBB muxuu yahay ururka? bismillaahir rahmaanir rahiim. wixii hore tawfiiqa Ilaahay hana waafajiyo wixii aan gafana Ilaahay hana saxo wixii qalad ah oo afkay ka baxayaan loo fahmin qalad af Soomaaliga iska dhib badan taas markaan ugu gudbo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan leeyahay ururkan la yiraahdo SBB waa xisbi nabadeed magaciisana waxa la yiraahdaa Somali Peace Party marka af Soomaali uu macnaheedu wuxuu noqonayaa xisbiga nabadda Soomaaliyeed magacaas waxaan u dooranay maadaama ay jiraan magacyo badan oo lala baxay sida UAC SNA ilaa iyo magacyo badan oo ururo oo macnaha ay dagaal ahaayeen laga soo gudbay kadib sharar badan loo qabtay oo dib heshiisiin ah oo aan lagu darin xisbigaas ama urur nabadeed la sameeynin kadib waxaan ku xisaabtanay in ummadda ay ka daashay xabad in ummadda ay rafaaday qax dhiig badan u daatay gabdhaheennina ay ku baaba'een ama dadkeena ay ku baaba'een badaha ugu daran weliba badan marka ay u tahriibeen cadan arrimaha waa arrimo badan oo aan dhihi karin waa kow iyo waa labo saa darteed marka waxaan qaadanay ama aan ka fikirnay maadaama aan qowmiyadda Jareerweyn iyo Banaadir war magac ku habboon oo ummadana u roon oo qofka markuu maqlane dareenkiisu uu istaagi karo muxuu yahay marka magaca sidaas aan ku dooranay waa xisbi nabadeed wuxuuna u furan yahay qof walba oo Soomaali ah oo nabad jecel wuxuuna u furan yahay qof walba oo ku daala xabada ama qoriga inuu dhigo qoriga nabadda uu doorto waa gartay Dr. waxaad soo hadal qaaday qowmiyadaha Jareerweyn iyo cadcadka ama dadkan Banaadirga la yiraahdo xisbiga ma ku midaysan yihiin labada qowmiyadood mise waxa gooni u leh qowmiyadan Jareerweyn maya xisbiga ma lahan qowmiyad Jareerweyn gooni uma lahan Banaadirna gooni uma laha laakiin anaga waxaana aasaasiyaasha xisbiga aasaasiyaashii magacan bixi magacan waxaan u bixinay ummad walba Soomaali oo degan dhulka Soomaaliya oo af Soomaali ku hadlayso oo ku hadlayso diinta islaamka naga dhaxayso dhulkaas wanaagsan oo quruxda naga dhaxayso oo colaada dilootay ama colaada baabiisay ayaan u doorno qof walba Soomaali magacaas uu u furan yahay inuu ka soo qabto xisbigaas waa gartay marka ka xisbi ahaan waad sheegtay in dadka ku midaysan iyo waxyaalihii aad u tala gasheen xisbigu ma xisbi siyaasi ah oo doonaya inuu siyaasadda Soomaaliya la jaan qaado mise waa iska xisbi urur nabadeed oo aad doonaysan inuusan Nairobi dhaafin wallahi waa xisbi ay sheeg siyaasadna kama marno sababta hadii la yiraahdo xisbi nabadeed siyaasadda waa qasab waa soo galay ninka qoriga wata laftiisa in wax laga dhaadhaciyo waa siyaasad ninka oo lacagta leh ama lacagta dhaqaalaha leh oo wadamada kale u dhisaayo oo soo galay inaan ka dhaadhacino inuu wadanka imaado nimankan oo qoryaha wato oo dagaalka wado in lagu maalgeliyo ayaga xitaa qori laga dhigo bal waxaan uu ninkii uu ku iloobo qoriga in macnaha ii sheeg ninkii laga dhaadhacay way imaan taas waa qasab oo ma aan siyaasad kama marna waa gartay Dr. waad mahadsantahay waxa tahay gudoomiyaha jaaliyada beelaha Jareerweyn marka waxaad nooga warantaa bal qowmiyadahan Jareerweynta la yiraahdo taariikh ahaan bal wax nooga taabo waa mahadsantahay aniga horta magacayga markaan ku sheego waa Maxamed Gaarane Cumar naanaystaydan waa Maash waxaan u dhashay qowmiyadda Jareerweyn oo la baxdilay runtii markaan ku sheego loo bixiyay 4.5 markaan ku sheego waxyaabaha oo ninka walkii aan qaadana dadkii loo qaadana oo ku safarnay
hase yeeshee maanta ma qabno in aan dhiig daadino ama inaan aarsano ama inaan qori qaadano ma ku jirno balkee waxa waaye dagaalka wuxuu ka taagan yahay uu ka socdaa dhulkii ilaahay noo dhaliyay waa koonfurta tusaalaha haddaa kuu soo qaada somaliland dowlad waaye waddankeeda waa nabad maamulaa ka jiro haddaan kugu xojiyo puntland sidoo kale waa nabad maamulaa ka jiro waa ka xumaya marka in gobolladeennii annaga aan lahayn oo qaraad ka soo baxay in xabadda ay la daa'isanto marka waa ku qasbanahay in marka meel walba oo nabadda jirto inaan ka raadino marka waxaan rabnaa marka wanaaga ay sameeyeen puntland iyo somaliland oo ah iftiinka nabadda bal annagana inaan ra'yigeena ku darsano tala ahaan magaca iyo ka dad ahaan markii la Jareerweyne waa qowmiyad aad u ballaaran waxay degtaa 9 gobol dad yar ma aha saan u maleynayaa marka 9 gobol la xisaab gobol aysan degnayn ma lahan waa dad beeraley ah waa dad aqoon-yahano leh waa dad professoro leh waa dad injineer leh marka soo erigaas marka oo 4.5 waxaan jeclaan lahaa in aan mar dambe qadka laga bixiyo marka Soomaali waa hal waa walaal waa hal diin waa la fikir waxaan si daraa marka annaga Soomaali oo isku af isku diin ah haddana inaan isfaham weyna adduunku waxaad arkaysaa dawlad oo kala qowmiyad ah oo kala af ah oo kala diin ah oo haddana heshiis ah marka waan fahmi lahay marka macnahaas meesha ku jira aniga isku faham weyna waan gartay marka hadda adaatihiin ururkan SBB Somali Peace Party ama ururka nabadda Soomaaliyeed ee adiga gudoomiyaha u tahay Maxamed Gaarana Cumar Dr. Macaash qorshe ahaan maxaa balankiina inay qorsheysan balankiina waa nabad waa peace waa in aan ummadda ugu yeerno nabadda inay doortaan oo qoriga ay dhigaan balankiina wuxuu yahay in siyaasadda ama Soomaali dhaqanka ay leedahay uu yahay labada qofood haday isdagaalaan in la isugu imaado wada hadal iyo xaaja lagu dhameeyo Soomaali dhaqankaas ilaa laakiin Soomaali dil iyo qori iyo baaba Soomaali dhaqankaas ma laha marka waxaan jeclaan lahaa Allah Raxmaanka ayaa horta awood iskale oo fadligiisa ku joogtaa xabadaas haddana Ilaahay waxaan ka baryaynaa in fadliga Ilaahay uu noo qaado xabada oo nabad wadanka uu ka dhaliyo insha Allah Ilaahay raadi insha Allah okay Dr. Macaash aad iyo aad ugu mahadsantahay wareysigaaga iyo waqtigaaga qaaliga ah ee aad qaybta naga siisay ugu dambeyntii maxaad u soo jeedin lahayd dadka Soomaaliyeed ee Soomaali weynta markii laga tago SBB iyo Jareerweyne iyo Banaadiriga Soomaali weyn maxaad u soo jeedin lahayd Soomaali weyn waxaan u soo jeedin lahaa inay nabadda qaataan in ay wadankooda dhistaan in ay wadankooda dadka ka farxaday oo qaxootiyada ku baaba'san dibadaha in ay ka firsadaan dhibaatada ay ku jiraan waxaa arkaysaa dadka dibadaha ilmahoodii af Soomaaliga uu ka tagay dhaqankii uu ka tagay diintii uu ka tagay marka waan si daro taas aad iyo aad baan ugu xumahay haddii aan dhihi lahayn xataa dhulku waan ugu yar yahay waxba aan dhihi dhulka inuu waaba tagnaan dhihi lahayn laakiin dhul oo aan yarayn oo khayraad badan leh oo haddana markii la isu qiyaaso dhul ahaan dhulka iyo dadka waxaan maleynayaa dadka dhulkii inuu badan yahay waxaa arkaysaa 300-400 kilomitir marka baabuurka uu jeexo dhul cidlaa oo aan la degnayn marka waan sabtar dhulkaas oo Ilaahay uu nagu maleystay oo hawada macaan oo badaha leh in maanta aan ka farxano oo aan ka doorano qaxooti oo sabtar dadka qaxootiga joogo laftooda raaxo kuma joogaan familkii ama xaaskii uu qabay ninka waxa way ka maqan tahay oo ma xukumi karo maxaan ku raadayay sheeg ilmihii uu dhalay ma xukumi karo oo diintii waxbarashadii kuma xukumi karo waa nasiib darro aad u xun wadankiina waa arato canuga jooga ama odayga jooga laftiisa xitaa wuxuu ku nool yahay raaxo darro ama nafac kulkiisa ka yeeraya ama maalin kasta la isku haysta ama dhiiga la daadinaya soo waa nasiib darro marka waxaa la rabaa warkoor maxaa u dagaalamaynaa haddii aan gaarin wayne bal nabadan isugu imaan sidaas waa marka ujeedada waxaan dhihi lahaa marka dhammaan ninka Soomaaliga meel walba ha joogo waa inuu ka xanuunsada arrintan dagaalka waa inuu joojiyaa arrintan dagaalka waa in aan u soo jeesanaa nabadda waa nolol dagaalkana waa dhimasho sidaasaan dhihi lahaa xisbiga waxqabadkiisa waxaa ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho iftiinkii Soomaali ah waa indhihii Soomaali waa warshadii Soomaali gabdhaha laftooda waxaan rabnaa inay ka siino qayb siyaasadda oo inay ka cayaaraan
waxaan xasuustaa xalay waxaan fiirsanayay Soomaali Channel fiirsanayay gabar la yiraahdo oo BBC-da oo hadda jirta magaceeda ay sheegay Aamin Musuuliye fikradeeda aad baan ugu taageersanahay ma aqaan magaceeda wajigayga xalay ugu horeysay magaceeda in badan aan ka maqlay BBC-da laakiin xalay yani wajigayda waxaan ka arkay ay sheegay Soomaali Channel runtii waxay qaadatay maracad asaay ah waxay tiri inta nabad ka imaanayso calinkaas ma dejinayo waan kugu raacsanahay firadaas Aamin Musuuliye إن شاء الله تعالى وحنجعلها في رد هذا الكلام إن قاتان قبلها الصوماليين ملك استجوبان بركين نبدأ وحكاني كره قبلها كاني كره سيدان قباني علادنا وحكاني كره قبلها كاني كره بركين عواي نينك هادو قور غادو وقبل ده على سبيك دب غادو نينك مسوي نقولها دي مشو مقولها لكن هدي أصاي لو وضع غادو حنو ملاينا يا إن فريد واضح أي تهاي نبدأ وباهنا أو حتى ويلك قوري غادو لاهي odayga qorigu dhiibi lahay laftiisa xataa inuu joojiyo soo marka gabdhaheena waxaan rabnaa haduu ilaahay in asay u xirno sida Aamina Musuuliye walaal aad baan ku salaamay xali aad baan ugu farxay wareysigaaga anigana waxaan jeclahay ka qowmiyada ahaan anoona kala saarin Soomaali oo aanan jeclayn in qabiil loo kala saaran jeclayn laakiin waqtiga iyo duruufta dadku waxbay bartaan leeyahay marka waan ka xumahay ee qabiil iyo hebel saan halula bari buu ku imaaday hebel goolkiraan ku imaaday hebel jubada hoos ku imaaday nidaamkaas inuu ilaahay nagu in waa tahay daawadayaal waxaanu wareysiga la yeeranay gudoomiyaha ururka SBB oo loo soo gaabshay Somali Peace Party ama xisbiga nabadda Soomaaliyeed waxa jirtay maalin dhaweyd in xisbiga SBB uu magaalada Nairobi ku qabtay xaflad balaaran oo si heer sare loo soo agaasimay idinkoo aan filayo inaad warka ka daawateen TV-ga caalamiga Somali Channel hase haatee waxaan jeclaan lahaa inaad wax yar aad xafladaas ila daawataan خديجة اللي يراهدوا أي شيء بريء أدو حسنا صوت تابسطينه يا دحال كيسي يا إسلام الدولة يسوي كيس دحال مرحوم فرصة دحال كيسي لو وصل الله سبحانه أيه إسلام معرفتي وحياتي بل هذا دحال كيويل كي يوحي وصوت تابسطينه دحال كوري لدحلقي دارا لدحلقي حوال أقل الأحلاق بالجبل دحال وحلا صوت حي ولا دحلقي تغيشو وحمكو شرع قضي مقالات تقول إسلام المالي قسام أنا أرى مالك بشاري